garoonka diyaaradaha aadan cadde airport ee magaalada muqdisho waxaa soo gaaray diyaaraddii siday igraan maxamed caraale iyo abwaaned koronto aadan waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey haween ka socday gobolka banaadir oo heerkacisay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir qaarqab iyo weliba muna cumar xasan bulshada Soomaaliyeed goboladii garoonkii aan tagnay meeshii aan soo dhaweynay xasuusan ku ay ku gashay aabeed bartuu ka heesayay timid maka xaaji banaadir barow xeevo waa badan yihiin bintu cumar gacal fanaanada kala cadar senator muna iyo gabdhaha haweenka gobolka banaadir meel walba annaga waxay noo tahay sharaf maantay inta kadib ayaa qolka martida waxa ku soo dhaweeyay halkaasina ka hadlay wasiirka gaadiidka Duraan Axmed Farax waxaana sheegay in fanaanadu uu soo dhaweynayo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno fanaanadeena Ikraan Caraale iyo abwaanad koronto aadan oo wadanka soo gaaray maanta runtii waxay noo tahay farxad aad u weyn oo u baahan dadka fanaaniinta oo Soomaaliyeed oo magac ku leh runtii waxay naga mudan yihiin qadarin weyn bay naga mudan yihiin waxaan rajaynaynaa intay meeshan joogaan inay wacyigelin iyo hawlo badan inay qaban doonaan haddii la yiraahdo runtii soo dhawaada wadanku idin baahan yahay inta kadib ayaa waxaa loo soo gulbiyay golaha murtida iyo madadaalada National Theatre-ka iyadoo halkaasi ciyaaraha hidaha dhaqanka ay ku soo bandhigeen ciyaartooyda gobolada Waaberi iyadoo qaar ka tirsan heesaaga iyo muusikistaana ay halkaasi mid lagu gacan qaaday abwaan maki xaaji banaadir ayaa tix gabay ah oo ugu tala galay igraan halkaasi ku soo bandhigay muuqdheer hablood magac suuban maan uroon ikraan maxamed muddo fog iyo waqti dheer waddankiid ka maqneed minaas mowla ku keenay oo maanta aad dhex joogto waa ilaah mahadiisa maan uroon magac suuban muuqdheer ikraan soo dhawow maxamuud maxamed xeebow imaaray ku-xigeenka golaha murtida iyo madadaalada maxamed xasan barrow oo la soo shaqeeyay igraan aabaheed maxamed caraale ayaa ka sheekeeyay taariikhda aabaheed iyadoo gabadhana ku soo dhaweeyay golaha murtida iyo madadaalada ikraan ulaheena dhabid toosnaantaad ugu eg tahay maasha Allah thank you ikraan dayax oogta yimid iftiinkaad ugu eg tahay thank you ufada saxan aroor udgoonkaad ugu eg tahay horteena fadhiga gobolada qaranka Waaberi oo maarayihii oo hormuud u yahay iyo mas'uuliyiintii kale adeerka maxamed xeebo waa joogaa oo Waaberi hargeysa aabbaha la ahaa anagoo idil baa ku caashaqsan cabduqaadir cabdi shube maarayaha golaha murtida iyo madadaalada ayaa isaguna sheegay in gacmo furan uu ku soo dhaweynayo igraan caraale iyo weliba koronto aadan igraan soo dhawow waa gurigaagii waa goobtaadii gabadha labaad oo kula socota koronto soo dhawow waxa la yiri waa hal abuur bilaaw ka dhacday oo iyo waliba fanaanad suba ka daran marka adna soo dhawow kulligii soo dhawaada Waaberi soo dhawow soona dhawey gabagabada ayaa halkaasi waxaa ka hadashay abwaanad koronto aadan iyo igraan maxamed caraale wiilasheena dhalinyarada ah ee maanta qoraxda taagnaa gudoomiye jawaahir gabdhaheena kale mas'uuliyiinta kulligiin waxaan idin leeyahay aad u mahadsantihiin ma soo koobi karo dareenkayga ma soo koobi karo farxadeyda waxaa idinka muuqda dad jacayl waxaa idinka muuqda wanaag maan ummadda Soomaaliyeedna waan mahad celinayaa ilaa saako dhan noo taagnayd anoo kala saarsaareen in morning ilaa iyo hadda oo aan la qadayn saacada waad mahadsantihiin muqdisho nabadana waan imid waan ku hamiyay inaan hal mar imaado laakiin riyadeedii way rumowday alxamdulillah waxaan leeyahay dhammaantiin waad mahadsantihiin madaxweynaheena waxaan leeyahay ilaahay xil aad u adag oo culus ay dusha u saaran ilaahay ha u fudaydiyo maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho